السلام عليكم ونين السلام دمانتين maanta waxaan idiin hayaa qiso cajiib ah ka hor dhici maayo qisadan maanta ee soo dhawow ugu horreyn dadkan ku cusub tahay nagu soo biir subscribe leh channelka sidoo kale dadka heshay video-ga like saar una sii share garaa asxaabtaada wad mahadsan tahay saacadu markii ay 8 fiidnimo waxaan ku sugnaa goob suuq ah oo aan saaxiibanaanay milkii ayaanu ka soo baxnay waxaanu gaarnay goobtii baabuurta la dhigto waxaanu ka warhaynay gaari ay saaran yihiin 4 qof oo rakaab ah dhammaantood rag way noo soo dhawaadeen oo hareeraha ayay eegeen markii hore waxaanu moodnay in ay raadinayaan meel ay baabuurkooda ku baarkimi karaan markaa waanu iska dhag inda tirnay laakiin mar kale ayay nagu soo dhawaadeen oo markan muuqaalka indhahoodu ku arkayeen ayaa cabsi nagu abuuray isla markiiba waxa aanu ku soo dhawaanay malkii annagoo tagnay goobtii CCTV-ga oo ku yaal meel baabuurta la dhigto oo kaliya cabaar la sugeynay baxaan markii ay tageen ayaanu gaarigii soo qaadanay isla markiina gurigii ayaanu baxnay laakiin meel ay ka soo jeedeen ayay mar kale ka soo muuqdeen oo markan indhahoodu waxay u baqayeen sidii indhihii damacooda ah in ay baabuurkooda saaraan ayaa si cad wajigooda looga arkayay wali istajinaya oo waxaan ku orday xawaare dhan 60 kiiloomitir saacadii hal mar ayaan isruwaanu ka tagnay maadaama ay ahayd waddo mashquul ah oo ay u dhowdahay in ay baabuurna bacsato laakiin waan khaldanaa saaxiibkii oo dhabarkii fadhiya ayaa arkay gaari nagu soo yaacaya oo xawli u dheereynaya kaas oo aan isla markiiba gaarigii joojiyay oo aan arkay iyaga oo naga gudbaya maadaama ay gaarigooda si degdeg ah u joojin waayeen iyo waqtigan weligii nolosheeda kama baqin in aan gurigeyga ka baxo dib ayaan u leexday oo haddana u ka xistay gurigeyga isagoo xawli aad u sareeya ku socda maadaama uu dhawaa ilaa maalintaas ma haysto calool ku filan oo gurigeyga kaliya uga baxo 6 habeenimo badbaado la'aanta haweenka ee wadooyinka Hindiya iyo caloosha xayawaankan oo kale ayaa iniyad jabiya inta ugu badan